Xanuunada maskaxdu waa caam. Ilaa 6 milyan oo qof ayaa laga helay, laakiin waxaa ka jira aragtiyo aad u kala duwan oo ku saabsan waxa uu yahay, waxa sababa, iyo sida dadka lagu caawin karo inay ka raystaan. Dadka maskaxda ka jirani waxay la kulmi karaan dhibaatooyin sida ay u fekeraan, dareemaan, amaba u dhaqmaan. Tani waxay si weyn u saameyn kartaa cilaaqooyinkooda, shaqadooda, iyo qiimaha noloshooda. Qabitaanka xanuunka xagga maskaxda ah dhib uma aha qofka qaba uun ee sidoo kale qoysaskooda iyo saaxiibadooda. Xanuunada maskaxdu waxay ka mid yihiin xaaladaha loogu fahamka yar yahay ee mujtamaca ka jira. Taas darteed, dad badan ayaa qaba xaqiraad iyo takoorid joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, caakiska iyo waxyaalaha buugta ku qoran iyo telefishinada iyo filimada waxa lagu sheego dadka maskaxda ka xanuunsan intooda badani waxay ku noolaan karaan nolol wax soo saar iyo guul leh haddii ay helaan daawada iyo kaalmada ku habboon. Dadka qaarkood, daawooyinka iyo la tacaalida kale oo caafimaad ayaa caawin kara, dad kalese waxba uma taraan. Daaweynta xagga caafimaadka waxaa laga yaabaa inay tahay qayb ka mid ah waxa caawiya raysashada, khasabse ma aha inay tahay qayb ugu muhiimsan. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in maskaxda oo laga xanuunsadaa aysan ahayn qofka qaladkiisa, mana aha calaamad daciifnimo, mana aha wax la isku quursado. In si gaar ah loogu arko dhibaato qofka kale inay tahay jirro u baahan daaweyn waa aragti aad u gaaban. Taasina waxay naga hor istaagtaa inaan ka fikirno raadka badan ee ay ku leedahay nolosha qofka, iyo sida ay u fekeraan, dareenkooda, iyo dhaqankooda, taas oo keeni karta dhibaato xagga maskaxda ah. Waxayna kale oo naga hor istaagi kartaa inaan u kuur galno la tacaalida aan dhinaca caafimaadka ahayn ee la heli karo. Sababahaas dartood, dad badan baa jecel inay ka hadlaan isku buuqsanaanta xagga dareenka ama maskaxda ah halkay ka oran lahaayeen waali.